Dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu ka soconayaa deegaanka Ceel Hareere oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Maalintii shanaad oo xiriir ayuuna dagaalkani waxa uu ka soconayaa deegaanka Ceel Hareere oo ku yaalla xuduudda ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Waxay ku soo weerareen deegaanka Ceel Hareere oo hoostaga degmada Muqokure ee gobolka Hiiraan. Ciidamada deegaanka ayaana waxay ka hortageen dhamaca kooxda Al-Shabaab oo la xiriiray in ceelka deegaanka lagu burburiyo gaarigaasi qaraxa laga soo buuxiyay, iyagoona sidoo kale fashiliyay weerarkan. Tan iyo xilligaasi kooxda Al-Shabaab ayaa waxay isku dayeysay inay la wareegto gacan ku haynta deegaanka Ceel Hareere. Hase yeeshee ciidamada deegaanka ayaa dhammaantood ka wada hortagay weerarada qorsheysan iyo sidoo kale abaabulka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaana guulo waaweyn waxay ka gaareen dagaaladaasi, iyadoona sidoo kale xubno fara badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka. Kooxda Al-Shabaab ayaana gurmadyo kala duwan waxa uu kaga imaanayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoona sidoo kale isku dayay gacan ku haynta deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka baxayay gurmadyo kala duwan kuwaas oo ku biirayay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ay wadaan ciidamada beesha Xawaadle. Ciidamada ayaana guulo waaweyn waxay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyagoo aanan wax garab aanan ka helin dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ciidamada deegaanka ayaana sidoo kale waxay iska difaacayaan weerarada kooxda Al-Shabaab tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab sanadkii 2022. Xilligaas oo bulshada reer Hiiraan ay bilaabeen howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaana sidoo kale waxaysan ka quusanin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan, iyagoona dhowr jeer oo kala duwan kula dagaalamay ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Hase yeeshee labadii bilood ee ugu dambeeyay tan iyo markii la qabsaday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe, kooxda ayaa waxay isku dayeysay inay la wareegto gacan ku haynta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Hase yeeshee ciidamada deegaanka beesha Xawaadle ayaa waxay iska diideen arrintani, iyagoo aanan wax garab ah ka helin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Ciidamada deegaanka waxaa jiro ciidamo aanan sidaas u badnayn kuwaas oo ka tirsan militariga Soomaaliya, hase yeeshee heeb ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan, kuwaas oo ka barbar dagaalamaya ciidamada deegaanka. Ciidamadan ayaana waxay u badan yihiin kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, kuwaas oo garab siinaya ciidamada deegaanka. Inkastoo ciidamada halkaasi ka dagaalamaya ay yihiin kuwa deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan, dowladda federaalk Soomaaliya ayaa iyadana waxay guulo waaweyn ka sheegatay duqeymo ay sheegtay in laga fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, taasoo ay sheegtay in khasaare lixaad lagu gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaana sidoo kale waxay sheegteen in khasaare ugu cuslaa la gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale sheegtay in weli ay soconayaan howlgallo kala duwan oo markaasi la xiriira dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada deegaanka ayaana sidoo kale waxay u muuqataa tallaabooyinka ay qaadayaan in ay yihiin kuwa ay markaasi ay uga hortagayaan weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan. Tan iyo sanadkii 2022 dadka reer Hiiraan ayaa waxay ku jireen dagaal joogto ah kaasoo aysan markaasi ilaa haatan garabka saxda ah aysan ka helin dowladda federaalk Soomaaliya, iyadoona sidoo kale dowladda arrintaas lagu dhaliilay. Dowladda ayaana sidoo kale waxaa la sheegay in ay gabtay mas'uuliyaddeedii la xiriiray dagaalkii howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan 40 horjooge iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay howlgal si gaar ah loo qorsheeyay oo ka dhacay deegaanka Ceel Hareere ee gobolka Hiiraan. Howlgalkan ayaana si wadajir ah waxa uu fuliyay ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ka taageeraya dagaalka kooxda Al-Shabaab. Howlgalkan oo ah mid bartilmaameed ah una dhacay sidii loo qorsheeyay ayaa lagu beegsaday goob ay Al-Shabaab isu qarinayeen, iyadoona sidoo kale lagu burburiyay gaadiid ay saarnaayeen maleeshiyaadka sida ay shaacisay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay howlgalkan Abwanas oo ay shabaabku ugu weerari jireen horjoogaha gaadiidka jabhadaha iyo Maxamed Axmed Xerow oo ah horjooga kooxeed ka tirsanaa Al-Shabaab.
sidoo kale waxaa dhaawacyo culus la gaarsiiyey Nuur Cabdi Rooble Nuunaani oo ah horjoogaha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Mudug iyo Galgaduud iyo horjoogo kale oo isagana lagu magacaabay Jaylaani oo hadda ah horjoogaha ugu sarreeya jabhada Al-Shabaab. Horjoogayaashan oo qaar lagu dilay howlgalkan, qaarna dhaawac culus lagu gaarsiiyey ayaana sidoo kale la rumaysan yahay in ay ahaayeen maskaxdii ka dambeysay abaabulka weerarka naflacaariga ee shabaabku ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Howlgalkan oo ah mid si heer sare ah loo qorsheeyey ayna sidoo kale kaalin weyn ay ka qaadatay hay-adda NIS ayaana si weyn u naafeeyey shirqooladii ay la damacsanaayeen shacabka Soomaaliyeed. Khasaaraha shabaabka soo gaaray ayaana sidoo kale la filayaa in uu intaas ka badan yahay, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ay si dhow la socoto qiimeynta natiijada howlgalka, waxaana dib laga soo gudbin doonaa wax kasta oo ku soo kordha howlgalkan sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka. Waxay xaqiijinaysaa siday uga go'an tahay in gebi ahaanba la cirib tiro shabaab kuwaasoo mar walba halis ku ah qarannimada iyo diinta Islaamka, ayaana lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka laga soo tago war-saxaafadeedkan ayaana sidoo kale waxay u muuqataa in ciidamada deegaanka ay yihiin kuwa had iyo jeer gaaray guulaha ugu waaweyn ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan lagu daawaday dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, taasoo uu sheegay inaysan ahayn sidii loogu talagalay. Goodax Barre ayaana waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay gabtay mas'uuliyaddii loo igmaday, sidoo kalena dadka reer Hiiraan aysan wax dhiirigelin ah aysan ka helin dowladda federaalka Soomaaliya, isagoona sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid aysan mas'uuliyadu ku jirin. Hadalka Goodax Barre ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xilka laga qaaday agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe ayaana sidoo kale dhowaan waxaa xilka ka qaaday dowladda federaalka Soomaaliya xilli uu markaasi dib ugu laabtay furimaha hore ee dagaalka. Dhowr jeer oo kala duwan ayuuna waxa uu tagay Sanbalulshe deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, isagoona sidoo kale dhiirigelin u sameynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee guulaha waaweyn ka gaaray dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxay u muuqanaysaa in kaalintii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka maqan tahay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, sidoo kalena dowladdu aysan sidii loogu talagalay u garab istaagin dadka reer Hiiraan, taasoo lagu tilmaamay in ay tahay mas'uuliyad darro iyo in ay dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyaddeedii ay qaadan weysay, sidoo kalena dadka ay dhiirigelin u sameyn weysay.